tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta Arsenal Arsene Wenger ayaa kula talinaya xidiga Arsenal u ciyaara ee Mesut Ozil in uu dib ugu soo laabto ciyaaritaanka xulka qaranka dalkaasi Jarmalka una dib kaga soo laabto ka fadhiistaankii ciyaaraha heerka caalamiga uu hore iskaga fadhiistay kadib koobkii adduunka. xilli Arsene Wenger uu wareysiinayay majalada Bild ee ka soo baxday dalkaasi Jarmalka ayuu waxa uu sheegay in xulka qaranka dalkaasi Jarmalka ay u baahan yihiin Mesut Ozil si lamidana in Ozil uu u baahan yahay inuu u ciyaaro xulka qaranka dalkaasi Jarmalka. waxaana intaas sii raaciyay in ciyaaryahanku hadduusan isku diyaarinaynin inuu ka qayb galo ciyaaraha koobka adduunka ama tartanka koobka qaramada qaaraddaas Yurub ee Euraha in ciyaaryahanku uu wax weyn oo ciyaarihiisa ka mid ah uu lumi doono. sidaysan taasi u dhicin ayuu Ozil kula talinayaa inuu dib ugu soo laabto oo ciyaaritaanka xulka qaranka dalkaasi Jarmalka. Arsene Wenger ayaana waxa uu sheegay in uu rajeynayo in tababaraha xulka qaranka dalkaasi Jarmalka ee Joachim Löw in uu la hadli doono Mesut Ozil kana dhaadhicin doono inuu dib ugu soo laabto ciyaaritaanka xulka qaranka dalkaasi Jarmalka. xilli xulka qaranka dalkaasi Jarmalka uu kasoo kabalaayahay wajigabixii uu kala soo kulmay koobkii adduunka ee ka dhacay dalkaasi Ruushka kadib markii ciyaarihii ka dambeeyay koobkaasi aysan marna adkaanin ayadoona 10 kulan ee ugu dambeysay xulka qaranka dalkaasi Jarmalka ay ciyaareen 6 ka mid ah ay guuldaro xambaarsadeen. dad fara badan ayaana wax iska weydiinaya booska macalinimo ee tababare Joachim Löw ayagoona qaar ka mid ah taageerayaasha xulka qaranka dalkaasi Jarmalka ay dalbanayaan in gabi ahaanba shaqada laga raacadeeyo tababare Joachim Löw.